qofku waa inuu at least caqabada ka gudbay raahdo okay anu gaabiyay kufaarmihi muslim baan hay qofku waxa lagu oranayaa maxaad luqadda ingiriisiga ama englishka ka baranaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Family Automatic American English. waxaan soo kordhinay barnaamij cusub podcast kaas oo ugu talagalnay inaan wareysano macallimiinta dhigta dugsiga iyo cid kasta oo aan khibrad ka heli karano dhanka luqadda inaga caawinaya. waxaan markaa ka codsanaa dhalinyarada iyo ku xiran ardayda inay soo qoraan su'aalaha ay u baahan yihiin in laga soo shaki saaro si aan uga caawino. College Kennedy waxa weeye college-da ugu muhiimsan marka la joogo magaalada Hargeysa maadaama ay dhigayaan native speakers ama dad u dhashay luqadda Englishka. intaa kadib waxaan ka yar hal doonaa in yar importance-ga uu leeyahay in qofkii maanta uu barto luqadda Englishka. waxay la jooga ustaad Coach Seattle waxaan leeyahay soo dhawaad ustaad podcast-gan welcome. Thank you. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jimca wanaagsan. Jimca wanaagsan. aad u naasatay. waxaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala bilaaban doonaa barnaamijkeena gudagal doonaa. barnaamijkeena wuxuu ka kooban yahay afar qodob oo muhiim ah. marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan ku weydiin doonaa ugu horeyn Axmed Seattle waayo. Okay, very good question. marka koowaad wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Jimca wanaagsan. aad baa mahadsantahay sida u qabanaysid podcast-kan wareysiga aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa ardayda waliba ardayda luqadda baranaya inay ka faa'iideystaan insha Allah. Thank you so much Mr. Zakaria. Okay. So Ahmed Seattle, my name horta magacaygu waa Ahmed Khadar Macalin Qaasim. laakiin naanayska ardayda ay bixiyaan waxa weeyaan Ahmed Seattle maadaama ka soo jeedo gobolka Seattle aan in badan joogay 27 sano aan qurbaha joogay xagaas dibaddan ku dhashay. So marka ardayda marka luqadda Englishka uu bilaabay waxay igu yeer nickname-kiisa waa Ahmed Seattle. laakiin waxbarashada xagaasan ku soo qaatay in linguistics specifically jaamacadda University of Washington. aadna waxaan jeclahay luqadaha inaan ardayda u fududeeyo dadka u fududeeyo sidii dantooda ugu gaadhaan insha Allah. danta ha noqoto waxbarasho ha noqoto dacwada inay ku faafiyaan gaalada u faafiyaan ha noqoto in iyagu baahidooda ku adeegsadaan more things. MashaAllah. And I'm excited to be here today with you. Okay, we're going to start waxaan bilaaban doonaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala topic-geena barnaamijkan su'aalihiisa bilaaban doonaa gudagal doonaa. Very good, let's go. su'aashka wadan ku weydiinaya waxa weeye ustaad badan markaan joogno waxaan ku sanayn doonaa marka bulshadeena Soomaaliyeed maadaama ay yihiin ardayda ugu badan ku xirnaan yihiin Soomaali. su'aashka wadan ku weydiinaya waxa tahay sidee ardayda baranaysa Englishka luqadda Englishka ay iskaga yareyn karayaan qaladaadka iyo caqabadaha ka hor iman karaya sida baqdinta qaladaadka hadal la'aanta inaan ku hadlin luqadii. Wow. su'aashada koowaad marka taas ku leedahay. How about you? Yeah, that's a very important question. waa su'aal aad u muhiim ah. But intaana ka hadlin ba caqabadaha khaladaadka sidii iskaga yareyn karaan amba uga gudbi karaan cabsida fear waxyaabahaas oo dhan waxa jira caqabad intan xagan joogay waxaan arkay caqabad baa jirta qofku hadduu luqadda Englishka baranayo caqabada ugu weyn aan arkay waxa weeyaan qofku waxa lagu oranayaa maxaad luqadda Ingiriisiga ama Englishka ka baranaysaa magaal baa tahay luqadda kufaarta maxaa kugu kalifayna baratid. So arday badan xoog uma sii geliyaan luqadda inay bartaan iyagoo waliba dantooda ku xiran tahay. At the same time waxaan arkay ardayda waliba dugsiga sare waxay ku manhajkooda wuxuu ku baxaa luqadda Englishka. magarasa marka dhibaatada dhinacna waxa lagu oranayaa maxaa luqadda gaalada ka rabtayna maxaa ku baranaysa maxaa waqti u gelinaysa haddana ardaygii waxa manhajkii wuxuu ku baxayaa English bugaagta baan eegay form 4ka form 3ga dugsiyada sare inta u badan aan arkay iskuulada Soomaalida waxa weeyaan English bay ku qorayaan macallinkana uu micnaynaya ardaygina uu ku dhawan yahay ma fahmiyo marka luqadii waxay noqotay albaab oo ka hor taagan aqoonti cilmiga luqaddu ma aha cilmi language it's not a knowledge sama waxa weeyaan waa skill waa xirfad qof kasta baran karo anybody can learn qofka 5 jirka ilaa qofka 8 jirka uu baran kara waa xirfad la baran kara laakiin caqabadu waxa weeyaan cilmigii knowledge-kii scienceska knowledge badan waxay ku qoran yihiin English language anigu intaan arkay anigu waxaan ka hadlayaa khibradeyda iskuulada dugsiyada sare aan tagay waxaan arkay collegeadan tagay English bay ku wada qoray in yar mooyaan Arabic ay ku dhigaan laakiin manhajka inta badan English ku qoray ardayda waxa lagu oranayaa ma magaal baa tahay af Soomaaliga maxaa ku diiday hadaa iminka arday practice garayno qof xagaa mari wuxuu oranayaa war maxaa Soomaaliga ku diiday
Soomaali ma ku hadashay maxaa luqadan ku fadhisaa hadhowna isla qofkii baa oranaya laga yaaba dawada ma akhrin kartaa ma iga caawin kartaa mobile settings kii baa fahmi waayey mobile kii baa isbedbedelay ma fahmiyo bal iga yara iftiinka xageen taabta English ku qoraya mobile kan English ku hadlaya ay walina English kina ku hadlayaan marka qofku ma hayno ka xishoodo ka baqdo inuu luqadaha baranayo laakiin dad baa isku hoos qof kale hadduu qof arday baranayo luqad wuxuu ku oranayaan hoos buu soo dhigayaan wuxuu oranayaan maxaa kugu kala computerkii English buu ku qoray inta badan habkii aqoonta loo mari lahaa English buu qofkii xanabiya maanta hadduu qof safar galo oo isiraahdo dhakhtar u bax inta u badan Soomaali kuma hadlayo qofku magaranaysa dhakhaatiirtii dadka kale English buu ku hadlayaan oo u dhexdhexeeya magaranaysa ardayda u badanna dadka Soomaalida inta u badan luqadda English kuma hadlaan waxa inta ku hadlaysa iyo inta aan ku hadlayn inta aan ku hadlayn garanayna si fiican ayaa badan marka loo eego inta aan u arkay dadka aan garanayn luqadda ayaa badan marka qofku wuxuu baahan yahay basicskiis uu barto naftiisa sidoo ugu dabaro caqabadaas horta jirta caqabada marka ku gudbo caqabada labaad anu imada aad sheegtay waxa weeyaan absida luqadani maaha luqadani hooyo qofku uu khaladaad u sameynaya qofku inuu u bareero khaladaadka sax magaranaysa qofku waa inuu shiraahdo xaqu sooranayo ama iska ilaaliyo khaladaadka inuu u bareero waa inuu galo khaladka waa inuu sameeyo waa inuu badiyo laakiin ilaahay khayr asiya macallimiinteena inta badan wuxuu ku dhiirigeliyay ardayga inuu grammarka barto hadduu khaldana waa la qofka waa la yara ceebeeyaa oo kale waxa ma garanaysid ma ha waa la yara ma garanaysid xaggaasna caqabad baa ka jirta ardaygu wuxuu baahan inuu khaldo luqadii waa inuu gacmihiisa la galo sax en markaasna isku day inuu bal istijaabiyo khalad amba sax afkiisa hadalku ka soo baxo sax amba khalad inuu ka warkeeno inaad okay inuu naftiisa nafteeda ku kalsooni qabaan isku dayaan try su-aashan marka tiri maadaama luqadda muhiim ay tahay barashadeedu waxaan ku weydiin lahaa su-aasha iminka استراتيجية ugu muhiimsan ama wadada ugu muhiimsan ee ugu gaaban badan waxa jecel piece of cake inaan badan shortcut inaan sameeyno piece of cake wadada ugu gaaban ee u karisid maanta arday aan hore u gelin college maanta kula tali xawrin lahayd yeah absolutely number 1 qofku intaan luqadda bilaabin luqad kasta wax kasta uu sameeyo inuu ilaahay tala saarto number 1 number 2 na sababta u baranayo inuu u caddahay qofkaas inuu qalin bug soo qaato uu qoro sababtan u baranayo luqadda waa sidaa a strong reason inuu qofku yeesho weeyaan because waxa dhacaya motivation kiiba qofka ka tagaya waxa arkay arday badan oo isdiibta saddex biloodii bilaabayaan luqad wixii sanayaan wixii baa ku yara adkaanaya wixii uu fahmi waayay grammar kiiba ku yara adkaanaya conversation kiiba ku adkaanaya speaking kiiba ku adkaanaya writing kii wuxuu soranaya iska daada ma garanaysa marka qofku wuxuu baahan yahay strong reason sabab adag intaan luqadda bilaabin inuu sabab adag inuu yeesho oo goal hadaf u yeesho sabab uu baranayo inuu yiraahdo danteeda ku gaariya يا ده تسأله كسي أرضي ما قرني أو واحد ويدي بري أرضي ما حابب نسأل لغته وحيد معلم واحد يقول دعي جامعة مريء كتاب فلوريدا ستيت أيام سنة بابا بحسن شري وحيد مرة بابا deny application وإيدي دي شرين every year وحيد يقول سكر شرين deny وحيد أنا ورا سكب بحسن شري وحيد سنة بي صوّعين الحمد أنا جو يابن أي قبل يقول تري hello this is Florida State University is this so and so أنا كي ما قريت شيء ما كان وحيد ها marka wuxuu yiri su'aali weydiisay macallin su'aalihii ba afka hadda waan garanayaa afkaygi ka soo bixi weeyaan cunaa xaqaas bay luqadda istaagtay wax alaalo waxaan ku hadlo wixii waan garan waayay gabadhan waxay tiri I'm sorry first build your language skills iska soo dhis luqadda and then inshallah and then after that you will you might come wuxuu yiri waan ka guus maalintaasaan go'aan qaatay inaan luqadda barto sidaanay fursad bay ii dhaafay way سؤال كنا إحنا لا ضحي واحد تري بدنا وين قف reason strong ولي بقى عرس صبوا عرس قف وين ديار صدق وكل ريحة إيه مسوي ذا الوقتي حتى واحد شفته صد كذا واحد سوي واحد ترى عرض وصلح بلاد بلا وكتيجي سينو صنع كرينا شوكتي أنا حلاك consistency سينو صنع كرينا شوكتي consistency is a very important skill وحكمت هاي شوكتين تو حكمت هاي حرفها أقوم مهم سنبه يكون سؤال أليسكو لوقته وقتين للسيوم ما أنت أرد بعد كسرني أنا ده لغة ما برا كره بس وقتي عن قليم ما شفت وقتي بالله بهاي وقت الله بهنا ما هو حني rocket science واحد أدق معها وين وقت جلسين time okay بركة أردقة يعني كان عن شوكتين الشوكتين تكون أدقت هاي ملفوق مجاري كرو بركة وحول بهاي قفكم إنه وحلا يراهدو bite size quantity أم بعده إنير أنتوا قفكم أودي كرو
in ma garanaysaa in aanu de laqi karaan in aanu isku ma garanaysaa isku qaadan qofku laakiin in yaroo fududo ka bilaabo wax uu qofku maareyn karo oo manage garan karo 5 minutes 10 minutes wax uu de commitment uu siin karo joogtayn 5 mire baa noqoto inuu qofku waqtigiisa u qorsheeyo yiraahdo way 5 mire horta aan ku bilaabo intaan meel tagin intaan waxa sameeyba horta aan ka bilaabo waxaan awoodi karo 5 minutes a day inta ugu yar horta joogtayntu waa muhiim 5 minutes 10 minutes small quantity ma garanaysaa laakiin maanta dadku yiraahdo luqaddan baranaya wuxuu soo iibsanayaa book 10,000 oo eri oo vocabulary wuxuu daawanayaa content videos waxa arkaysaa wixii uu si qofku ma sii wadayo وسديري أمريكا إن يرى مكان إن ير مهمة واحد إن ير ميل فوق بالجو جارة quantity ير هارون له قفك أرتك أمريكا قفك بلابيو إن ير حكوا بلابو قو أنا ذقنا هياش سدون شوكتيه واحد دويلة وذاقي بال سامي شوكتيه اللي وذاقي لأن يردنا توليسك هذا لو كرسيد تيلوسكاس يا تريسكاس تيلوسكاس وقف استعمال كره ودوني يودي يقون أغلب كستو واستعمال كان لغتين كيسوبر لها حول هاتو for sure that's a good question ما شاء الله سكري you're asking good questions okay وحويان سؤال شادي أرتب بدنا كفكر لهين إنت اللغة بالعالم ما يفرق بيجاري لهين أنا وحرنا لها you know وحيابها هو مهم سن resources كقف استعمال كره وحويان إنه هرتا إسكت the very base ما قرنسا reading you're listening حرفة اللغة وحيو بحضا mainly 4 skills وحويان listening you're reading لبدأسنا إن بدأ ما كهذا و input skills يواحد شلا speaking you're writing speaking وهذا كي you're writing وراك و output skills مركا إنه حوق قفكو سارد مركا كواد reading and listening واحد دقاه قليا يوم ما قرنسا قفكو إنه آخريو واحد دقيستو إنه ورشة كلمته وحنا لها إنه آخر سكبديو you know قف لفر يستأخر كرو يراهدو إيه آخر بدنا مركن سوق وحنا كمان سو ميل سومالي لقى هذا ما كوسو كوري ميل إنجليش لقى هذا you know مركن يوروب شوقي اللغات كلام كهذا الجنيه لكن مركن you know مركن براني إنجليش تا معلمين توي اسمين شلون بوجاد منو آخر شلون قف كستوي مركن إنجليش دبده كوسو برتينه وقرانيا واحد شاقيو معلمين تبي آخر ناس بوجاد تبحرني يعني أنت هو آخرين الشيء كذا واحد يروح فضوده ABC أو كلام كناسا ولكن there is the fish that's the fish do you see the fish سداسين والله اللي ترى واحد يروح في مكانسا basic مركب عرضي وبيجيسني وحبا كوفور بيا كناسا مركب حالنا number 1 وحويان إنه قفكم آخر سكبت صدا إما كان كفاية ده يستو AI you know technology كان إما كchat GPT كناسا chat GPT artificial intelligence chat GPT وكلمة وين chat your GPT هادو قفكو صوت داونلود قرية موبايل كيس فري إسوق ماكو حسمين كرتابة عد باودو بكرتان هل كان chat GPT AI artificial intelligence كا عد أنت ودوتيد practice وحنا نسا English هذا practice كريه ما أنا كمان كيني بان إن شاء الله قفك وكله chat GPT وكله practice كرينيا وحنا نسا hello my name are Ahmed لتنو والله جاي عبينه كوسو عليه صح كل هذه سب practice كده practice ما قرنا صح إما كوين شنا وحياة بدنا نساسو AI أو إما كد أدو كوس بدله وقت إننا كود شنا technology هو مهم تو واي واحد عرف كده واجسين هذا الكاغنا ميرانا ياي واحد تيجي أرتيد بدنا واحد يتان لغيت مصنع سوري عن إنجليش لكن الصومالي برشين سواء كهذا yes لغيت فوق إنجليش سوري عن إيه أرتيد مركو ودمايو سكندري هذانا شعاد بقرية شعاد ودمين سكندري بلاوي هذانا ماسترتي هذا أرتيد سووا أقويه هنا أو qualified أرتيد أيوه هذانا إنجليش كهذا ترى محد عقبات مركتبوا بعدين سومالي دينين أنت تشوفتي عقباتهم حياتهم yes عقبات دوغوين أنت أنت تابع بعقباتها وحدوني كهالله أرتيجاس حالة هادو أرض كوتشرو هاكا قوسن don't give up واحد لقد نية شباب ما كنا so number 1 واحد أقول لها عقبات داس وحكانية إن الوحي لو معنينيو you know the problem is translation معلم كيبا واخني وحورني واي ما تو حنبرنا the theory of social work مركز وقري وما حي social work is the study مركز social work وحويا وحبرشة معلم هو معنينية أري أرض اللي محب برام والله معني يوحنا نقول كذا قف واحد معنين كلام عنكو هالكلام ما كان عقبته وين واتا وان أركينا دلنا يرد الصومالي ده واحد أركي مركل الله سبر بريقود دلنا يرد قرب تشوجا ما قدرنا سا أنا بقول لي أنا ده وان أركي وان كوسا كريد بده so وان أركي ودلنا يرد الصومالي ده أو كوسا كريد دلك بدنا أقوم بدنا بيلاقي
way ka xariifsan yihiin runtii marka si kasta loo eego kuwa qurba jooga waxay garanayaan waxyaabo badan iyaguna ay ku fiican yihiin oo baahan laga faa'iideysto laakiin kuwa dalka jooga waxay jecel yihiin wax bartaan imika qurbaan marka joogay hablaha u badan inay bartaan wax laakiin waxaa jira qaar badan ma aaminsanaba iskuulada iyo jaamacadaha iyo kuma badna magaranaysa qofku secondary ka baxaya wuu isku dayaya wuu ka baxaya wax kale laakiin xaggan dalka waxaa jira kumanaan sanad walba qalan jiriya dhalinyaradu aad bay u taageersan yihiin dhalinyarada soomaalidu aad bay u jecel yihiin wax bartaan marka waxa weeyaan caqabadaasna waa loo micneynayo luuqada loo micneynayo maaha in loo micneeyo waxa weeyaan ardaygan wixii lagu tuuro isaga marka maskaxdiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey inuu qofku maskaxda ka shaqaysiyo English to English ha loogu dhigo as much as possible caqabada ugu weyn ardayda haysata taa weeye at least xiisado qaar ha loogu dhigo English to English qaarna Soomaali ha looga dhigo laakiin English to English ha la isku dayo qaarkood saare luqadda English ka baranayaan macalinka English u dhigaya haddana English Soomaali ugu macnaynaya English na ku baraya u leeyahay macalinkana khalad ma laha laakiin waa dhaqanka jira dimension garanaysa marka inaan taas laga gudbo wayaan oo macallimiintu isku dayaan English to English ardayga inay ku kalsooni qabaan aaminaan yiraahdaan I believe in the student aan kula yar hadda luqadda bal let me try صح ma garanaysaa isku dayaar dig practice try aad santay su'aashan kale waxaan leedahay in kastoo gabagabadii barnaamijkan ku sii shaqeyno podcastigeenan insha Allah wuxuu noqon doonaa si taxano u socon doonaa waxaanu ka socon doonaa kala socon doontaan meelaha iyaga baraha bulshada ku leenahay social media yes sir YouTube haday tahay TikTok haday tahay Facebook waad nagala socon insha Allah tabaaraka wa taala su'aalihiina waad nala soo wadaagi doontaan waxaad noo soo dhigi doontaan dhanka commentiga su'aasha ugu dambaysan ku soo koobiya waxa weeye saddex afar rukun bay badanaa ka dhaqaaqdaa ama four pillars wala luqadda Ingiriishku si simultaneous ah wada socda luqadda Ingiriishka skillskeeda san ku horumarin karaya that's a good question too Zakaria anigu waxa oran lahaa haddaan su'aasha ka jawaabo waxyaabaha si simultaneously amba wada jira oo qofka dhinac kasta afarta xirfadoodba ka dhisay waxa weeyaan inuu qofku buug yar soo qaato aad u fudud very easy very basic wax uu fahmiyo laakiin very basic inuu buuga soo qaato isku day inuu akhriyo codkiisa isagoo soo duubiya wuxuu ku duubi karaa mobile magaranaysa codku soo duubiya amba codkiisa soo duubisa markuu qofku ardaygu akhriyo inuu report yar ka soo qoro iraahdo way maxaan ka fahmay inuu dib u dhageysto the report yar ka soo qoro okay summary iyo conclusion iyo magaranaysa adigu soo koobo nuxulkii taabto iraahdo way waxaas buugaas ka hadlayay waxaan ka fahmay okay mu soo qoray writing kaaga ma ku practice garay inuu hadaba qof amba asxaab ha noqoto amba macallin ha noqdo inuu sheegay iraahdo macallin this is I want hadon inuu ka sheego buugan akhriyay summary in conversation yar ku qaato marka in conversation oo ku saabsan wixii uu qoray inuu soo jeediyo oo conversation ku galo marka qofka muxuu sameeyo speaking kiisi wuxuu xoojiyay uu taabtay xaga listening kiisi uu dhageysanayay qofka kale conversation ku dhageysanayay writing uu yara qoray reading kina buugi buu akhriyay afarta uu isku sameeyay marka qofka inuu insha Allah buugi soo qaato fudud summary ka soo qoro cod soo duubo qofna kala hadlo buugaas wadada ugu wanaagsan qofka ku wada kara I think so in my opinion Zakaria way waxaan kusoo koobiyay barnaamijkeena kusoo xiri doonaa insha Allah tabaaraka wa taala kulli taxanu noqon doona taxano badan ibaris badan oo yaan doona podcastigeen soo doona taxana waxaan sameyn doonaa insha Allah bariyaha dambana in English to English macallimiinta qaar aan ku wareysano insha Allah tabaaraka wa taala ya ardayda jeclaan lahaa inay sameeyaan too okay insha Allah bidillah si ardaydu caqabadaha kuna wadaagan sanad ogsoonahay macallin waxaad hayd luqadda Soomaaliga halkan ku baratay qofka hadduu hal luqad bartana luqadaha kale baranaya soo luqadda Soomaaliga maxaa ku fudeeyay si luqadda Soomaaliga waxay fudeeyaan in sheego macallin baa jiray xaggan iskuul dugsiga Sheekh Bashiir ma garanaysaa oo ilaahay khayr siiya dugsi anigoo arday u dhigay si free blash baan ugu dhiganay ardayda English barigaas and then waxaan sameyn jiray macallinka weyn wuxuu yiri macallin ila caawiyo isagu wuxuu ka caawin jiray leadership iyo hogaaminta iyo habka mindset-ka ardayda ma garanaysaa leaders looga dhigo ma garanaysaa iyo noloshooda xirfado bartaan marka isagu wuxuu yiri bal yara caawi aniguna ku caawin aniguna dalka waan ku cusbaa markii ugu horeysay Soomaali kuma hadli karaan ma garanaysaa way ugu adkay so xaga dabadana deegaanka waxay ku xiran tahay haddaan imika Soomaali qofka aan isticmaalina way ku adkaanaysaa ma garanaysaa in badan lama isticmaalo Soomaali dabadda marka waxa dhacay wuxuu igu yiri macallin class baan ku dhiibiyaa waxa yiri class sida igu dhiibisa wuxuu yiri Soomaali ku sharx Soomaali sida ku sharx Soomaali ma ku hadlabe wuxuu yiri wax ka warwar wuxuu yiri buugi buu dhiibay wuxuu yiri buuga akhri adu waxa sameeysan ka hadal buug ka hadal wax akhri waxa ku qoran meesha markaad garan waaydo eriga waxa tiraahdaa ardayda marka ka ku sheegaysa wax kalmadii Soomaali kugu micnaysa
marka waan tijaabiyay wax moodayn horta inuu yaro wanaagsan yahay waan tijaabiyay show wiga caawisay Soomaali baan ku akhriyay ma garanaysaa waxaan jiray hogaamintu waxa weeyaan inuu qofku kalmad iga soo baxdaan garan waayay Soomaali ardayda marka iyagana buug way haystaan way sitaan marka iyagana way ku dhawaaqeen aniguna waan kaga daba oran jiray marka ardayda wixii moodayn iyagu anigu u dhigayo show iyaga ay dhigayay nice sabab Soomaali ku bartay so qofku waa inuu isku tuuro ina akhriska inuu akhriyo ku dhawaaqo eriyadii because marka qofku wali anigu waxaan aaminsan akhrisku waa aad buu muhiim yahay luqad kasta qofku baranayo aniga waxa iga caawiya akhriska marka akhriya Soomaaliga waxa muddo yar kooban waxaan ku fahmay sida eriga loogu dhawaaqo magaranaysa aniga hore ku hadlay marka qaar badan aan asxaab nahay qaar walaalo qaar dad badan oo dibadda jooga Soomaali kuma hadli karaan inta u badan arkay Soomaalida dhalinyarada dibadda jooga qaar way jiraan aad u xariifin oo ku fiican magaranaysa laakiin inta u badan way aalaysa kuma hadlayaan سؤال ugu dambeeyay soo xareeyo waxa weeye barnaamijkeena podcastgeena qaybtiisa koowaad kulay overview guuban wadnay hordhacban wadnay for sure insha Allah waxaan samayn doonaa bal si gaar ah inaan qodobada dul istaagno sida akhriska oo kale ku hadalka oo kale practice-ka vocabulary dhacka gaar u istaagno for sure balse waxaan ku soo xir doonaa wax tala ah maxaasina dhalinyarada ku taxan college-ka dhalinyarada kale rabto inay luqadda u hamuun qabtaan luqadda barato dhalinyarada ku jirta college-ka whether online or offline kuwa dhigta waxaan oran lahaa you know joogtaynta adkeeya xaadiriska adkeeya because qofku hadduu wixii joogteeyo xaadiriska si fiican u ilaaliyo ardayda dhiganayaan sheegaya inay magaranaysaa wax badan baa u baxaya oo weliba ku soo celiyaan kooraska koorashadayna waxaan u bixinay round one level xagga laga oranaya level 1 level 2 beginner waxaan u bixinay round was qofku inuu soo wareego marka qofku inuu mar labaad kooraska ku soo cesho shayga marka mar labaad ama mar saddexaad samaysid wax badan baa ku furmiya wixii waa fahmaysaa wax ku dhaafay markii hore ayaad haddana marka si fiican u fahmaysaa different perspective ba ka yeelanaysaa amba aragti meel kale ka eegaysaa so waxaan oran lahaa dhalinyarada joogtaynta adkeeya kuwa dhiganaya kuwa aan kusoo biirin amba luqadda meel kale ku baranaya amba self study sameynaya inta badan akhriska ku dadaala number 1 ardayda dadka inta badan wareysta ma akhriyaan akhriska iyo dhegeysi waliba waxa jira imika podcastyo laba qof oo sidan oo kale oo English ku hadlaya oo dhegeysan kartid YouTube ka dhegeysan kartid adigoo xaafad iska jooga in badan dhegeysatid iyo in badan akhridid saas oo laha waliba akhriska aad u daa waxay tagi karaan bookshops garanaysa sidayno kale labadayna week hore waxaan tagnay bookshopkii waan buugaag ma soo eegnay qof kaxayso marka waxaad sameyn kartaa bookshopka kugu dhow tag ka soo iibso buug aad fahmisid oo aad xiisaynaysid luqadaada horumar vocabulary badan oo ka helaysatid waxaan kusoo xiri doonaa insha Allah biidillah barkaasigan qaybta koowaad su'aasha ugu dambaysa kulli su'aalaha ugu dambeeyay noqdeen su'aasha waxay noqonay su'aal badana ardayda caqabad ku ah oo isweydiiyaan marka badan aad ku dhex jirtid ama wax la dhiganaysa ama wax u dhigaysidba waxay aaminsan yihiin ardaydu inay native speakers inay ku dhex noolaadaan ama inay deegaan helaan dadkii luqadda Ingiriiska ku hadlayaan ardaygu ma oran karaysaa deegaan iyo deegaan la'aanba ardayga luqadda uu baran karaya isagoo deegaanka that's a good question too deegaanku waa caawinaya environmentka iyo amba meesha qofku joogo aad buu caawinaya waa arkaysa imka Yamanida soo gasha magaalada amba oramada soo gasha markiiba luqadda way baranayaan maxaa sababaya muddo 2 bilood 3 bilood ayuu luqadii ku hadlayaan waxa sababay deegaanka ku jiraan deegaanku aad buu qofku u caawinaya laakiin ma aha excuse cudurdaana ma aha waxaan arkay qaar Mareykanka jooga qaar Canada jooga qaar Europe jooga 20 sano jooga wallahi baan sheegay 20 sano joogeen waxana wax khaldan kama sheegayo ma garanaysaa wax jiro ma caabeynayna laakiin 20 sano joogeen walina luqadda kuma hadli karaan ma garanaysaa because qofkii ma doonayo dhex galo wixii kuwa marka excuse yaanu qofka ka dhiganin qaar ba xaga jooga badan aan ku hadli karin oo u baahan turjumaan translation u baahan translation hadii dhakhtarka tagaan hadii meel iskuulka tagaan qof u turjumaan ma garanaysaa iyagoo 20 sano qurbaha iyagoo 20 sano qurbaha jooga ma garanaysaa so that's a problem marka qofku waxaan arkay xagan aqsigana haddaan eegno xagan waxaan arkay magaalada arday amba dad aan ka bixin dalka oo sida qof ugu dhashay native ugu hadlay luqadii waan arkay arday badan sidaas ma garanaysaa marka labada dhinac waan arkay marka waxaan oran lahaa deegaanku caawinaya laakiin waxa fiican ardaygu inuu si deeply u galo luqadda si deeply maxaan ka wadaa inaanu xaga sare luqadda ka yara barbarano laakiin inuu guda galo dhageysiga markuu dhageysanayo sida caruurta yar ma aragtay inuu attentionkiisa ama attentionkeeda 100% diiradda saaro wixii oo galo laakiin hadduu dhinacna Snapchat iyo TikTok ka wado dhinacna Englishka ka dhageysanayo dhinacna ma garanaysaa qadadii ka karanayso amba asxaab xaqan kala hadlayo waxa ma baranaya qofka garanaysaa waa inuu qofku deep loo galo
marka waa inuu ardaygii inuu sameeyo qofka baran luqadii inuu isaga ku xiran tahay أنا قفكي كحلان تهاي absolutely قفكي كحلان تهاي deegaan qofka cudurdaarka ma dhigan deegaan karo kama dhigin kartid deegaan kama dhigan karo may way laakiin marka la leeyahay deegaan qofka ma u baahan yahay inuu samaysto asxaab deegaanka ah oo luqadii kala wada baranaya rabo inuu samaysay aad iyo aad qofku waa inuu ku xidhnaado asxaab iminka amba family ha noqdaan amba asxaab ha noqdaan oo ka yimid meelaha kale luqadii ku hadlaya aad bay qofka uga caawinaysa because waxa laga yaabaa qofka inuu si khaldan u isticmaalo luqadii marka qofka ka caawinaya كصحيح waxaan ku soo xiro doonaa barnaamijkan insha Allah biidin Allah tabaaraka wa taala taas aynu ugu joogi kulamo dambe oo xiiso leh iyo macallimiin kala duwan oo korodkeena kuwaas oo khabiir ku ah expertise ku ah in badanna dhigay luqada qualified ah yani insha Allah tabaaraka wa taala ku soo doonaa barnaamijkan si taxanu socon doona waxaad leenahay ku xidhnaada mar walba akoonadeena baraha bulshada ku leenahay hadii tahay TikTok English podcast okay insha Allah biidin Allah marka barnaamijkan si taxanu insha Allah biidin Allah socon doona good job best interviewer I appreciate you. Jazakallah khair. Thanks a lot.